بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي kusoo dhawaada qurxiyo caafimaad oo mar kale isu soo noqod wanaagsan. Maasha Allah, maanta waxaan idiin wadaa chicken legs sida loo sameynayo iyo saladka yarka insha Allah. Si fudud aan u sameyn doonaa insha Allah chickenka. Waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan, fadlan haddaad ka heshid iyo haddaan ugu cusub tahay subscribe. Asxaabtii horey noola joogtayna soo dhawaada. Maasha Allah, aan isla fiirino markaad waxaan sameynayaa, waxaan ka diirayaa qalafta dhan, haragga yarka waa ka diirayaa chickenka waayo dufan badan buu leeyahay. Dufankaasna ma rabo insha Allah. wixii dufan oo dhan ama baruura waa ka jarayaa insha Allah. saasa kusoo wadaya, kusoo dhamaynaya insha Allah. waa kan waa soo dhameeyay, halkaan aan kusoo riday. marka waxaan ku darayaa biyo insha Allah. maraq baan rabaa inaan kala baxo haddii Ilaahay yiraahdo. biyo la siman aan ku daray insha Allah. dabkaan saarayaa haddii rabeyno. wax yar waxaan ku darayaa oo liin dhanaan iyo filfil ah baan ku darayaa. waa isla karinayaa. maraqaan ka rabaa hal kar markuu laqo insha Allah. ilaa 5 daqiiqo 7 daqiiqo meelahaas u deynayaa dabka. hadda lemon and pepper waa liin dhanaan iyo filfil isku jiraan ku darayaa. daboolkiisa u dheereeyay marka. lix daqiiqo kadib aan kusoo laabtay. waa kana waa ka gurayaa insha Allah. 6 daqiiqo kadib weeye. 6 daqiiqo kadib baa kusoo laabtay. marka waa ka gurayaa insha Allah. hadda ujeedaan weli dhig iyo ka muuqda, laakiin maraqan ka rabaa insha Allah. aan suub yar rabaa inaan ka sameeyo ama bariis aad ka jecesha. waxaa jecesha ku galiya. chickenkeena waa ku jilacayaa xoogaa. foornada markaa geliso si macaan oo asagoo bislaaday hadhow uga soo bixi doonaa wada bislaaday. hadda waxaan diyaarinayaa waa kana wixii aan isugu dari lahaa waa yogurt. plain yogurt aan isticmaalayaa insha Allah. 2 qaad ku shubay. waxaan ku darayaa tomato ketchup haddaa haystina oo tomato shiidan ama yaanyo shiidan ayada isticmaali kartaa. dhadhan wanaagsan u yeelaysaa maasha Allah marka aad ku darid. saliid 2 qaad aan ku daray. haddana waxaan isticmaalayaa xawaajiyadii. waa idin qorayaa xawaajiyada dhan. huruud, xawaash kaari, basbaasyo, paprika, toon, waxaasoo dhan baa iskula darayaa. si fiican marka isugu walaaqayaa. wax cusbo ma isticmaalin. liinta iyo waxay ku jirtaa cusbo iyo filfisha. waa cusbo ku dhex jira. marka horena waxaa ku soo kariyay, haddana aan ku darayaa. intaas enough igu filan marka. hadda u baahan tahay cusbo ku sii darso markaas. chickenkii waa ku soo ridayaa insha Allah. si fiican marka isku dhex gelinayaa. markaas soo dhex geliyay waa kana saan uu noqdo maasha Allah.
foornadii waan geliyay 45 daqiiqo ilaa 1 saac waa u daynayaa insha Allah. Salarkan yarkaan jarjarayaa marka lagu cuni doonaa. Waa yaanyo, celery, avocado iyo mango. Waa kan maasha Allah. ilaa 50 daqiiqo meelaha kadib waa kana chickenkan maasha Allah waxa ka soo baxay qurux iyo macaan isku darsaday aan inaba caadi ahayn laga sheekeyn karin. Una jilicsan yahay aad u jilicsan yahay maasha Allah. Caruurta aad u jecel yihiin xaajiga iyo caruurta insha Allah waa ka heli doontaan saan filayo. Samee salarkan yarkaan ku soo darsaday diet hadaa ku jirto ku anfacaya insha Allah. Intaas qado fuula waaye ama casho hadba ka jeceshahay. Fadlan soo dhawaada asxaabta. Channelku waa channelkiini insha Allah. Hadaa nala joogtay waa ku mahadsantahay daawashadaada iyo commentigaaga. Hadaa nagu cusubtahay waxyaalo badan baa ka faa'iidi doontaa insha Allah. Soo gelin doona subscribe.